Kosovo waa dowlad ay shacabkeedii u shubeen webiyaal dhiig ah qiimaha xorriyaddooda awgeed. Inta aynaan gudagelin taariikhda dalkan Kosovo, bal aynu ka ogaano waxoogaa macluumaada. Jamhuuriyadda Kosovo ama Kosovo waa dowlad ay aqoonsan yihiin qayb ka mid ah dowladaha caalamku. Waxa ay ku taallaa bartamaha gobolka Balqaan, waxaana ay xuduud la wadaagtaa Macedonia oo ka xigta dhanka waqooyi, Serbia oo ka xigta dhanka koonfur bari, Albania oo ka xigta dhanka koonfureed, Montenegro oo ka xigta dhanka waqooyi galbeed. Beedkeedu waxa uu gaadhayaa 10,887 kilomitir ah, waxaana ku nool dad gaadhaya 1,873 milyan. Luqadooda rasmiga ahi waa Albanian, jinsiyadeeduna waa Yuruubiyaan, waxaana laga isticmaalaa lacagta Yuurada loo yaqaano. Kosovo waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, waxaana ugu badan Albaaniyiinta, iyagoo gaadhaya 92.9%. Sidoo kale waxaa ku nool Masaari, Bosniyaan iyo weliba Roomaan. Kosovo waxaa ka jira diimo fara badan, waxaana ugu badan diinta Islaamka. Waxaa haysta oo taabacsan dad gaadhaya 95.6%. Kirishtan Kaatooliga ah iyaguna waxa ay gaadhayaan 2.2%, halka Kirishtanka Ortodokska ay gaadhayaan 1.5%. Kosovo waa dowlad leh 10 madaar oo ay diyaaraduhu ku degtaan. Miisaaniyaddeeda sanadlaha waxay kor u dhaafaysaa $7 bilyan. Dhaqaalaha sanadlaha ee qofkii soo gala waxa uu gaadhayaa $7,600 Mareykanka ah. 4.4% dadka ku nool dalkani waa beeraley. 17.4% waxa ay ka shaqeeyaan warshadaha dalka, halka 78.2% ay ka shaqeeyaan shaqooyin kale. Heerka shaqo la'aanta ka jirta gudaha dalkaasi waxa uu gaadhayaa 31%. wax soo saarka ugu muhiimsan ee ay ku tiirsan tahay Kosovo waxaa ka mid ah galleyda, qalabka dhismaha ama building material, macdanta biyaha. 28 Juun 1389 dagaal baaxad weyn oo taariikhi ah ayaa ka qarxay bannaanka Kosovo, halkaas oo ciidamadii Cusmaaniyiinta ee u hogaaminayay Sultan Murad al-Awwal ay kaga guuleysteen ciidamadii amiirkii Serbia Lazar. 1912 waxaa la jabiyay dowladdii Cusmaaniyiinta, halkaas oo labadii boqortooyo ee Serbia iyo Montenegro ay wadaageen dhulka Kosovo. kadib dagaalkii koowaad ee adduunka, Kosovo waxay ka mid noqotay boqortooyada Yugoslavia. Intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunkana waxaa la qabsaday Yugoslavia. Kosovona waxaa lagu daray Albania oo markaa Talyaanigu gumaysanayay. kadib dagaalkii labaad ee adduunka, gaar ahaan 1946, Kosovo waxaa lagu daray midowga Yugoslavia iyadoo la raacay dastuurka 1947. Kosovo waxay ku noolayd xukun ka dhex jira qaab dhismeedka midowga Jamhuuriyadda Yugoslavia ilaa dhammaadkii 70aadkii qarnigii 20aad. dhammaadkii sanadkii 1989 baarlamaankii Serbia waxa uu Milosevic u doortay madaxweynaha Serbia oo ahaa gobolkii ugu weynaa Yugoslavia. Milosevicna waxa uu si cad oo bareer u sheegay inuusan ogolaan doonin isku day kasta oo gooni-goosad kharash kasta ku baxee. Milosevic waxa uu tirtiray maamulkii Kosovo Albania, waxaana uu ku xukumay si bira isagoo adeegsanayay booliska rabshadaha iyo weliba habab caburina. 1990 hogaamiyaashii Kosovo Albania waxa ay ku dhawaaqeen inay ka madax bannaan yihiin Serbia, waxaana isku dayeen qaabab nabadeed sida banaanbaxyo, shaqo joojinta shaqaalaha, qaadicidda hay'adaha Serbia iyo wixii la mid ah. Milosevicna waxa uu ku jawaabay si xoog ah isagoo adkeeyay gacan ku haynta amniga Kosovo, waxaana uu shaqada ka eriyay 10,000 oo shaqaale Albanian ah. sanadkii 1991 kadib burburkii midowgii Sofiyeetka waxaa bilaabmay burburkii federaalka Yugoslavia markii ay ku dhawaaqeen Macedonia, Slovenia, Croatia iyo Bosnia inay ka go'day federaalka. sanadkii 1992 reer Kosovo waxa ay qabteen doorashooyin aan rasmi ahayn, waxayna madaxweyne u doorteen Ibrahim Ragova, kaasoo isku dayay inuu abuuro nidaam waxbarasho iyo mid caafimaad oo la mid ah kuwa Albaaniyiinta. laakiin Serbia waxa ay ka hor istaagtay dhammaan isku daygiisaasi. sanadkii 1999 waxa uu ahaa sanadkii indhaha caalamka uu soo jiitay xaaladda xun ee ka jirta gobolkani, waxaana ay ahayd markii ugu horreysay ee dadka badankiisu maqlaan ereyga Kosovo, iyadoo ciidamadii xoreynta Kosovo ay dagaal la galeen ciidamadii Serbia, halkaas oo ciidamadii Serbia ay xasuuq bahalnimo u geysteen rayidkii reer Albania, taasoo ku qasabtay inay beesha caalamka wax ka qabato. bishii March 1999 NATO waxa ay duqeymo cirka ah ku qaaday Serbia, kuna qasabtay Milosevic inuu ka baxo Kosovo, waxaana la hoosgeeyay ilaalinta qaramada midoobay iyo NATO oo halkaa geeyay ilaa 17,000 askari. isla bishii March 1999 tirada qaxootiga Kosovo Albania waxa ay gaadhay ilaa 200,000 oo qof.
dhammaadkii isla bishan adduunka waxaa argagax geliyey xasuuq cusub oo ay geysteen maleeshiyooyin reer Serbiya ah oo ku caanbaxay xasuuqii jardiinada, halkaas oo lagu xidhay in ka badan 20 hooyooyin iyo carruurba leh, waxaana lagu furay qoryaha darandooriga u dhaca. NATO waxa ay xoojisay weeraradii ka dhanka ah goobaha militariga iyo kaabayaasha dhaqaale ee gudaha Serbiya, waxayna Milosevic ku qasabtay inuu joojiyo hirarka barakicinta. 10kii bishii Juun 1999 Milosevic waxa uu ku dhawaaqay inuu aqbalay inuu gebi ahaanba ka baxo Kosovo, taa beddelkeedana NATO ay joojin doonto weerarada militari ee ku haysay. Qaxootigii Albania waxa ay bilaabeen si tartiib ah inay ugu soo noqdaan dhulkoodii. Qaramada Midoobeyna waxa ay ciidamo nabad ilaalin la geysay Kosovo. Ciidankii xoreynta Kosovo waxa ay bilaabeen inay hubka iska dhigaan, in badan oo ka mid ah xubnaheediina waxa ay ku jireen ciidamada cusub ee Kosovo. Qaar ka mid ah hogaamiyaashooduna waxa ay sameeyeen xisbiye siyaasadeed. 17kii February 2008 saacad markii ay ahayd 3:49 taliska gobolka Kosovo ee la doortay waxa uu ku dhawaaqay Kosovo inay tahay dal madax bannaan gebi ahaanba kana go'day Serbiya. Jiritaanka iyo madax bannaanida Kosovo waxa aqoonsan dalal badan oo adduunka ka mid ah. Maalintii lagu dhawaaqay madax bannaanida Kosovo, isla maalintii xigtay waxa ku dhawaaqay aqoonsigeeda Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo weliba Afghanistan. Kosovo hadda waa dowlad dimuqraadi ah oo madax bannaan. Xaaladda Kosovo ayaa xasishay siyaasad ahaan iyo militari ahaanba. Aragtidii dagaalka ayaa sii fogaatay, laakiin dalka Kosovo weli waxa haysta dhibaatooyin dhaqaale, heerar shaqo la'aan baahsan, musuqmaasuq iyo weliba xoogaa khilaaf ah oo ka jira waqooyiga dalka, halkaasoo reer Serbiya ay ku urursan yihiin. Qalalaase badan kadib waxa ay soo saartay Qaramada Midoobay go'aan kama dambaysa oo sheegaya madax bannaanida Kosovo.